halkani waa BBC oo aad ka dhagaysataan mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 24 bisha May, saacadda Afrikada Barina waa 7 subaxnimo oo gowa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo u hoggaansantay go'aanka dib loogu dhigay dacwadda muranka badda ee kala dhexeeya Kenya. inkastoonu jeclayn kuna doodnay kuna adkaysanay in 8 Juun ilaa 12 Juun la maqlo oo maqal iyo muuqaal lagu maqlo haddana ugu dambeyntii go'aanka maxkamadda waa ku qasbannahay, dhinacyaduna waa ku qasban yihiin inay ixtiraamaan una hoggaansamaan. maxayse tahay sababta Kenya ay u doonayso dib u dhigista dacwadda badda? waxaan u malaynayaa hadda cidna kama dadna Kenya inay rabto in mashruucan intii ay jiidi karto ay jiido ilaa ay keento xaalad banaanka lala aado oo markaa la yiraahdo out of court settlement aan sameeyno oo aan meesha ku gorgortano. ayada marna ma rabto in maxkamaddu kiiska kala goyso. waxaa kale oo aad maqli doontaan fayraska corona oo cabsi hor leh ku abuuray dadka da'da ah dalka Djibouti gaadiidka dadweynaha oo dadku ay ku raacaan tiro badan xilli lagu wacyigelinayo dadka in ay kala fogaadaan. qodobadaas iyo kuwa kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Axmed Badar, anigoo Xasan Shucmar ah ayaan idinla socodsiinaya. waxaan ku bilaabaynaa dhagaystayaal wararka caalamka ee BBC-da iyo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. mahadsanid Xasan. bangiga dhexe ee Venezuela ayaa dalka Britain ka bilaabay dacwad sharci ah oo ku dalbanayo in loo sii daayo kayd dahab oo dhan $1 bilyan oo dalkaasi uu ka hayo. qareennada u doodaya bangiga dhexe Venezuela waxay sheegeen in dahabkaasi looga baahday si loola dagaalamo cudurka safmarka ee coronavirus. dalka Venezuela ayaa dal ay saaran yihiin cunaqabatayno ay ku soo rogeen wadamada Maraykanka iyo Britain. 100,000 oo arday oo koonfurta Korea ku nool ayaa la sheegay inay goobahooda waxbarashada ku laabanayaan kadib markii ay bilooyin waxbarashada hakad u gashay cudurka safmarka ee coronavirus ee dalkaasi ka dilaacay. ardayda ugu horreysay waxbarashada bilaabaysa ayaa lagu sheegay kuwa dhigta jaamacadaha oo imtixaankoodu sanadkan uu ku beegan yahay bisha December. ardaydu markii ay goobahooda waxbarashada ku soo xaadiraan waxaa la siinayaa dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo, iyadoo lagu amray in markaasi heerkulkoodana baaritaan lagu sameeyo joogto ah iyo in ay ixtiraamaan awaamiirta kala fogaanshaha bulshada. shacabka dalka Brazil ayaa lagu amray goobaha ay dadku isugu yimaadaan inay ku xirtaan maaskarada afka iyo sanka lagu xirto. qofka amarkaasi u hoggaansami waayana waxay dowladdu sheegtay in lagu ganaaxayo $50. go'aankaasi ayaana noqon doona mid la sii mariyo aqalka Senatka madaxweyne Jair Bolsonaro uu saxiixo. dalka Brazilna wuxuu ogolaaday dadka uu soo ritay fayraska corona in lagu daweeyo dawada malaariyada looga hortago ee loo yaqaano hydroxychloroquine. shirkadda weyn ee dawada soo saarto ee Johnson ayaa sheegtay inay joojinayso boolbarada carruurta jirkooda loo mariyo in ay ku iibiso dalalka Maraykanka iyo Kanada. shirkaddu waxay ku gacan sayrtay eedda loo soo jeediyey ee ah boolbaradaasi inay ku jirto maaddo laga qaado cudurka kansarka. shirkadda ayaa marar badan eeddaasi loo soo jeediyey maxkamad lagu geeyey. dhexdhexaadaha sare ee Britain u qaabilsan ka bixitaanka midowga Yurub ayaa midowga Yurub ku eedeeyey in ay dalbanayaan heshiis ganacsi oo ay tayadiisu hooseyso. hadalka dhexdhexaadaha Britain ayaa ku soo beegmaya xilli uu istaagay wadahadalka wareegii saddexaad ee looga wada hadlayay xiriirka mustaqbal ee ka dhexayn kara Britain iyo midowga Yurub. ugu dambeyn, dowladda Britain ayaa abaalmarin guddoonsiisay Captain Tom Moore oo ku dhowaad 40 milyan oo geni ku deeqay hay'adda bixisa adeega caafimaadka Britain ee NHS. Tom oo ay da'diisu 100 jir ay tahay ayaa lacagtaasi uu NHS ku deeqay ku soo ururiyey tabarucayaal dhan 1.5 milyan. Captain Tom oo dagaalkii labaad ee adduunka ka qaybgalay ayaa haatan loo dallacsiiyey darajada korneelka isagoo bisha Abriil ee sanadkan xusay sanad guuradiisii 100aad ee ka soo wareegtay dhalashadiisa. warkii idaacadeena subaxnimo waa naga intaan dib ku celiyo Xasan. aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo nala socodsiinayay wararka caalamka ee BBC-da. dhagaystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka.
aynu ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aqbashay isla markaana ay u hoggaamsamayso go'aankii maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee dib loogu dhigay waqtiga dhageysiga dacwadda muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa BBC-da u sheegay in inkastoo Soomaaliya ay jecleed in 8 ilaa 12 bisha Juun la qaado dacwadda, haddana ay garawsadeen waqtiga lagu jiro oo aanay suurtagal ahayn marka dhinacyo kala duwan laga eego. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana uu iga warramay arrintan. maxkamadda cadaaladda adduunka waa hay-ad ama loo aasaasay in wadamadu wixii dacwad ah oo ka dhaxaysa ay ku kala garbaxaan. dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenyana hadda muddo 6 sannadood ah ayay qaadatay. 2 goor baa hore dib loo dhigay codsi ka yimid xagga Kenya. anaga doodeedu waxay ahayd in mar walba la maqlo cadaaladda la dhageysto. hadda waa markii saddexaad oo dib loo dhigo. anagu inkastoo doodeedu ahayd kuna adkaysanay maxkamaddana qoraal rasmi ah 2 goorba u qornay, haddana go'aanka maxkamadda dhinacyadu waa ku qasban yihiin inay qaataan. waxay maxkamaddu waqtigan tixgelisay cudurkan dilaaga ah ee aafeeyey adduunka. mudane ra'iisul wasaare ku-xigeen, waxaa muuqata in mar walba dowladda Kenya ay doodaheeda ku qancinayso maxkamadda marka la eego sida wax u socdaan. marka dhinaciina maxaa ka qaldanaya kula tahay? doodeedu mar walba waa mid sharciga iyo statute-ka shuruucda caalamiga ah ku salaysan. 2 goor hore waliba markii September aanu tagnay wax yar ka hor Kenya waxay caydhisay looyaradeedii sababahay doontaba ha u caydhisay. marka in dhinacyada fursad la siiyo ayay maxkamadda ula muuqatay. go'aankii ay soo saartay maxkamaddu markaana wuxuu ahaa in mar dambe aan dib loo dhigi doonin June 8 ilaa 12 ay tahay marka u dambaysa ee la dhageysan doono dacwadda dhinacyada ee afeed. mar dambena aan dib loo dhigin sidii gudoomiyihii maxkamadda gabadha Judge Shu la yiraahdo oo China ah asalkeeda ay ka sheegtay goobtii. laakiin waxa dhacay cudurkan waqtiga qeyrul caadi ah force majeure dhacay, dunidii oo dhan kala xidhay, dal walba gaar u xidhay. maxkamadda qudheedii wax ku cusub maadaama maqal furan aanay hadda samayn karahaynin in ay nidaamkii dejiso maqalka iyo muuqaalka ahaa. maxkamaddu waqtigan ay go'aanka ku qaadatay cudurkaas dunidii kala wada xidhay awgii, anagu inkastoonu jeclayn kuna doodnay kuna adkaysanay in 8 Juun ilaa 12 Juun la maqlo oo maqal iyo muuqaal lagu maqlo. haddana ugu dambeyntii go'aanka maxkamadda waa ku qasbannahay, dhinacyaduna waa ku qasban yihiin inay ixtiraamaan una hoggaansamaan. laakiin ra'iisul wasaare ku-xigeen, markaad eegto hawshaani waqtiga ay qaadatay iyo marxaladaha ay soo martay iyo hadda halka ay marayso, miyaan loo qaadan karin in doodihiinnu ay jilicsanaayeen? maya, marnaba kama jirin. doodeedu sharcigay ku salaysnayd. looyaro waaweyn oo caalamiya baa nagala shaqeeya. ilaa hadda waxaad og tahay markii ugu horreysay Kenya inay durtay awoodda maxkamaddu kuma dhageysan karto kiiskan oo ay tiri maxkamaddu ikhtisaas uma leh. maxkamaddu taa waa diiday, waxayna qaadatay go'aankii dowladda Soomaaliya ee ahaa maxkamaddu waa hay'adda u dhaxaysa cadaaladda adduunka ay tahay in ay dacwaddan dhageysato. marka maxkamaddu go'aan bay soo saartay xukun tafatiran oo faahfaahsan oo ballaaran oo ay leedahay waan dhageysanaynaa. marka taa qudheeduba waxa weeye guulihii ku saraysnaa doodda. taasaa ka weyn maalmo dib ugu dhig looyaraan qaadanaya. meesha ay taallo dooda weyni waxa weeye gunaanadka dacwadda iyo maqalka doodaha afeed ee ugu dambeeya. wixii dokumenti ahaa horaa loo gudbiyey inay maxkamaddu dhageysato. June bay ku eekayd. cudurkan ayaa yimid. maadaama hadda muddaxileedka dowladda aad ka tirsan tahay uu ku sii socdo waqtigii dhammaadka, isla markaana dhowr jeer dib loo dhigay arrintan, miyaanay u muuqan inaad ku guuldaraysateen ka midho dhalinta ee kiiskan? kamidho dhalintu waxay ku xidhan tahay dhageysiga dhinacyada iyo maxkamadda go'aanka ka dambaysta ah ee ay dhageysato, go'aan ka soo saarto, xukunna ka soo saarto. aanu aaminsannahay kuna hanweynahay in doodeedu sharciyad ku salaysan tahay. xagga muddaxileedka haddii dib dowladda xukuumadda nabad iyo nolol usoo noqoto dowladdu, iyo haddii muwaadin Soomaaliyeed iyo mas-uul Soomaaliyeed oo kala yimaadaba, dacwaddana waxay u taallaa qaranka Soomaaliyeed iyo dalka Kenya oo aynu isku hayno. marka dalku ma lumayo, qaranku ma lumayo, ummadda Soomaaliyeedna ma dhammaanaysa. halganka dhulka Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliyeed lagu soo dhixinayo oo muranku inagala dhaxeeyo dalka Kenya waa mid socon doona ilaa uusan waaga waraaba cunin. March 2021 ninkii nool waxba inagama xigaan, waqtiguna waa ordaya. mas-uulkii Soomaaliyeed ee kasta xilligaa jooga iyo annaga qudhayada waa diyaar baan u nahay inaan sii wadno.
codsigan dowladda Kenya ee dib loogu dhigay doodii idinkala dhexaysay wax saameyn ah ma ku yeelanayaa xiriirka idinkala dhexeeya ee Kenya? maya kuma yeelanayo xiriirkii diblomaasiyadeed iyo jaarnimo iyo isdhexgalka dhaqaale iyo bulsho. kaasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo qadka telefoonka igu warramayay. haddaba muxuu Soomaaliya uga dhigan yahay go'aankan dib u dhigista dhageysiga dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan badda? maxayse Kenya mar walba u dalbataa dib u dhigista kiiskan? Dr. Afyare Cilmi oo culumta waa Dr. Afyare Cabdi Cilmi oo culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar ee dalka Qatar ayaan su'aalahaasi wax ka weydiiyey. والله ده وكل Soomaalidu dabcan way jeclaan lahayd in waqti hore waxaan lagu kala baxo laakiin hadda ma arko aniga wax weyn oo dhiba hadiiba wali maxkamadda ay case-ki u yaalo. waan filanayay hadda waraysigii kan ka horreeyay just few days ago waxaan idin sheegay inay maxkamadda wali aysan arrintaas ayada ku dhawaaqin ilaa haddana aniga oo baba ka aragba officially يعني siday rabto inay arrintan u manage garayso. marka maadaama ay arrinku uu wali taagan yahay hadda dhacdadan dhacday wax hadda Kenya u gaar ma aha wax Soomaaliya u gaar ma aha waa wax hadda adduunka oo dhan ku wajahan waana wax maaragtay maxkamadda iyo siday u shaqay doonto saameyn ku yeelan doona. marka waxaan isleeyahay aniga haba soo raagto laakiin aakhirka waxay gaari doontaa in uun si loo kala baxo. marka wax hadda culaysa oo Soomaaliya umad ahaan iyo dal ahaan ka soo gaaraya hadda ima muuqdaan. haddii qoladani ay dhammaystiri weyso dabcan wixii kaloo yimaada ayaa dhammaystiri doona oo Febraayada soo socota haddii kuwan intay ka dhammaato kuwa kale yimaadaan ama hadday kuwan sii joogaan hadba kulli qoladii joogta ayaa kiiska sii dhammaystiri doonta. waayahay Kenya dhowr jeer ayay codsatay in dib loo dhigo kiiskan isla markaana maxkamaddu way aqbashay. marka ma la oran karaa qareennada matalaya dowladda Soomaaliya mar walba waxa ay la tagaan dood aan adkayn oo dabcan lagu qanci waayay? maya aniga saas hadda inay tahay u malayn maayo waayo hadda horta midkan dambe ama Kenya ha codsata ama ay codsanin kiisaskii aan intaan maalin horena waa idin sheegay laba kiis oo kaleeto oo bishan in ahayd in la dhageysto dib loo dhigay ka Soomaaliya oo dabcan ku soo dhawaada fooda ku hayeen haddii hadda dib loo dhigay waa wax la fahmi karo. marka waa wax hadda COVID-19 ka imaaday Kenya inay saa jeclayd oo ay warqad qoratay oo ay tirsaan aan loo ku dhigo oo ay wax sheegtay waa iska I think aniga waxaan isleeyahay waa wax aan hadda kiiska nuxur ka ahayn arrintan dambe. labadii jeer hore waa laga yeelay mar walbana maxkamadda ayaa markay labada dhinac isku dhageysto go'aanka iska leh. marka wax hadda Soomaaliya gaar u ahaa oo ay ka samayn kartay aniga hadda ima muuqan mana u malaynayo hadda looyaradeedu inay xun yihiin. looyaradii markii hore kiiska galay ayaa wali ku jira intaan maqlay marka gabadhii laga reebo. marka waa arki doonaa kulli wixii ka soo. ujeeddada ugu weyn ee dowladda Kenya ay uga gol leedahay inay mar walba codsato in kiiskan dib loo dhigo maxay kula tahay? wallahi horta waxaan u malaynayaa hadda cidna kama dadna Kenya inay rabto in mashruucan intii ay jiidi karto ay jiido ilaa ay keento xaalad banaanka lala aado oo markaa la yiraahdo out of court settlement aan samayno oo aan meesha ku gorgortano. ayada marna ma rabto in maxkamaddu kiiska kala goyso. marka waa lug jiidaysaa waa maaragtay intii ay samayn karto waa samaynaysaa waana soo samaysay already oo hadda 3 goor dib u dhigtay oo markii hore ay ka dooday in maxkamaddu ay xaq u leedahay. waa u jeedaa Kenya marka inay intay garnaqsatay istiri haddii waxaan maxkamadda la geeyo waxba ku heli maysid meesha way ka muuqataa dabcan. waayahay waqtiga hadda loo qabtay in kiiskan dib loo dhageysanayo waa waqti uu dhammaanayo muddaxileedka dowladda hadda jirta. marka taa ma loo qaadan karaa in dowladda Kenya ay raadinayso fursad ah in dowladda hadda jirto oo dood dabcan dheer la dhex martay oo arrintan waqti ay iskula qaateen in ay sugayso inay meesha ka baxdo oo isleedahay bal tan xigta ku eeg arrintan? waa laga yaabaa inay ayadu saa u xisaabtamaan laakiin waa inaa horta xasuusataa kiiskan qoladii hore oo kuwa hadda jooga ka horreeyey aa maxkamadda geeyey kuwan hadday soo noqdaan jooga dowladda ama kuwa kale hadday yimaadaan u malayn maayo hadda inay ku dhacaan inay kiiska maxkamadda intay ka saaraan Kenya siday rabtay ay banaankan kugula gorgortamayna dhahaan. marka wax hadda iska bedelaya nuxurka waa laga yaabaa marka qolada joogtaa inay xogaa credit ka raadiso sumcad siyaasadeed iyo wax ka raadiso annaga kiiskii soo guulaysanay wax noocaas oo kale ay u spin garayso dadka ugu sheegto. laakiin ciddi joogtaba waxaan isleeyahay waxay ku qasban tahay kiiska maxkamadda in lagu hayo welibana sidii loo baahnaa loo difaaco oo looyaradii iyo dhaqaalihii ku baxaa iyo waxaas ay dowladuhu iska diyaariyaan ciddii doonta ha joog.
kaasi wuxuu ahaa doctor afyare cabdi cilmi oo culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar ee dalka qatar isagoo ku sugan magaalada dooxa ayuu qadka telefoonka igu waramay. qodobkaasi qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay dhegeystahan oo lagu magacaabo maxamed shaafi sheekh xasan oo jooga boorama. waxa uu leeyahay waan bogaadinayaa dowladda soomaaliya in ay aqbashay go-aanka dib u dhigista dacwadda muranka ee dhinaca badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya. waayahay way mahadsan yihiin dhegeystahaas iyo dhegeystayaasha kale. markana ee dalka jabuuti waxaa maalmihii lasoo dhaafay sare u kacday tirada uu soo ridanayo fayraska corona, waxaana loo sababaynayaa arrintaasi in dadku aanay u hogaamsamin awaamiirta dowladda ee la xiriirta in dadku ay kala fogaadaan islamarkaana ay muujiyaan taxadar dheeri ah. gaadiidka dadweynuhu ay adeegsadaan ayaa ka mid a meelaha aysan ka jirin kala fogaanshaha oo weli dadku ay si caadiya hawshooda u wataan. warbixintan waxaa jabuuti ka soo diray maxamuud cusmaan bulxan. dowladda jabuuti ayaa qaaday xayiraadii 24 saaca ahayd ee dalka saarnayd 17 bishan kadib degrete soo baxday, waxaana shacabka loogu baaqay inay mar kale dib u furi karaan goobahooga ganacsi si ay u dhaqaajiyaan dhaqaalaha dalka. waxaase lagu amray inay muhiim tahay kala durugsanaanta bulshada, in la qaato afxirka iyo gacmo xirka intaba. gaadiidka dadweynaha oo aan shaqayn muddo ku dhow 2 bilood ayaa dib u bilaabay howlahoogii iyagoo u kala daadulaya dadka gobolada dalka iyo xaafadaha caasimadda Jabuuti, balse dadka raacaya gaadiidkaasi waxay ku raacayaan 30 qof oo ah tirada gaadiidku uu qaado. mana jiro wax kala durugsanaana waxaan ka ahayn inay xiranayaan afxirka iyo faraxalka oo marka gaarida ay raacayaan ay tahay muhiim. gudoomiyaha gaadiidka basaska Mahdi Cali Warsame ayaa ii sheegay in sababo dhaqaale awgeed ay u ilaalin waayeen kala durugsanaanta, waxaana wadi haday kaaskiisanka la gelinayay ay tahay boroteeshka xanuunka laga ilaalinayay dadka iyaka soo qaadanaya, annaku shooferkii iyo kurishbaygiin baa iska iibsanaya, dadku iyaka soo qaadanaya, annakuna baaldigii xaggan waan dhignay. caafimaad wixii ay hawshaasi naga waajib ay nagu lahayd oo dhanba ay xukuumaddu Jabuuti amar ay ku bixisay caafimaadka dadweynaha in loo waanu dhammaystirnay. dadka qofkay aan sidan kaaska inaan annakuba joojinno weeyaan waa annakaaba joogsa kale kuma qaadayna adoo kaaskaasi tamayne. aad baan u ilaalinaynaa caafimaadka dawladdu ay horka amar mitir kala durka ay 15 qof baan ala 15 qof aan wada qaadi jirnay, imika haase 30 qof baan qaadaynaa maaskii una xidhan. xasan qumana cawleed waa mid ka mid ah darawallada baabuurta u kala goosta gobolada iyo caasimadda. waxa uu BBC u sheegay in qofkii aan wadan afxirka iyo gacmo xirka in ay ku wacinayaan goobaha dowladda si tallaabo looga qaado. annaguna waxaan nahay dadka u shaqaynaya ee darawallada nahay, marka sidii nidaamka loo bixiyay ee wasaaradda caafimaadka ku bixisay amar ku bixisay sidii inaan u dabaqno oo ilaalino. qofkii dee aan ka fahmi weynana aan dee wixii ka qaadan karna qarar ka qaadano haddii noo dhowdahay kii ciidanka noo dhow yahay inaan iska sheegno ka wallahi adigu way fiican tahay alxamdulillah. cabdi cali axmed waa oday ka imid mii oo bandooga ay ugu dhacday Jabuuti halkanna ku xayirna in muddo. waxa uu ii sheegay in uu qaatay amaradii dowladdu ay soo jeedisay, marka uu mii ku laabtana uu dadka uga digi doono cudurkan. waa sidana maaragtay kuwa ku safraya maaragtay haday baadiye tahay haday magaalo tahay kuwa ma kamid ah waana sidana inaan qaadano waxaan noo sheegin waxna badbaadinayo weeyaan. wax maaragtay qof uu leeyahay ma waa wax naftiina daryeel oo naftiina u badbaadinayay leeyahay. bulxan waa uu mahadsan yahay. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. fayraska corona oo dunida dhibaato badan ku haya ayaa haddana waxa uu sii abuuray walwal iyo cabsi kale oo qaar ka mid a bulshada saameyn ku yeeshay noloshooda, gaar ahaan dadka da'da ah ee ku nool dalka Mareykanka, kuwaasi oo cabsi darteed aan dibaddaba uga soo bixin guryaha. goobaha lagu hayo dadka waayeelka ah ee Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa ka mid a meelaha laga soo sheegayo cabsida la soo gudboonaatay dadkaasi oo la xiriirta in dadka kale ay uga nugul yihiin cudurka. Faysal Maxamed Cilmi waxa uu bartay caafimaadka maskaxda, waxaana uu markaasi qadka telefoonka ugu waramay Cabdishakuur Cabdullaahi Casoowe. waxay u walwalayaan waxa waaye kan koowaad
dadkii ehelkooda ahaa hadda uma imaadaan waa la kala joojiyey dadka moogtahay dhibaatada dhici doonta waxaa waaye ama kasoo qaad ama gabadhaada ama wiilka hadduu magaalada joogay shaqada ku laabto oo dad soo arko uu soo wareego oo hadhowt adiga ku imaado cudurkii inuu adiga kuu keeno markii dadka la dhawaala furo oo maarata economiga iska xumaado oo maarata la dhehe nolosha ama dadka ha dhintaan ama dhaqaalaha ha dhinto dowladdu waxay dooratay in dhaqaalaha uu dhimanan oo dadka dhintaan dadka dhimanaya ugu badanna waxaa weeye hadeertaan waa odayaasha oo immune systemka iyo dhibaatooyin kaleto maarata xanuuno kale iska qabay marka horeba dadkeena odayaasha hadaan la shaqeyno 3 cudur baa ugu badan oo ku dhaco waa sakarowga subaga oo kor u kaco maarata wadnaha ku dhaco iyo dhiikarka iyo ayagoo kuwii maskaxda qabay oo ahaa qaarkood depression ka noqoto maarata walwalka qofku maalintiisa maarata ka adkaan karin wixii dhan baa isugu darsamayo marka Faysal ma waxaad leedahay dadkii waayeelada ahaa waxay maqleen fikraddii ahayd cudurka coronavirus wuxuu u daran yahay dadka da'da ah marka sidaas darteed ayay u cabsanayaan miyaad leedahay cabsida ugu weyn oo haysato waa taas waxayna og yihiin bilanada degan yihiin dadku ku wada dhacaa cuduradan saan kuu sheegay dad badan oo Soomaaliya ku dhacay familiyo badan ilaa 7 qof 8 qof ka kooban dadka badana waa ka soo kamaan dadka isbitaalka loo qaado xoogooda aan laga soo celinin waa odayaasha marka waxaa dhacda odayaasha way isla degiin way iska warhayaan telefoonada isku wacaan hebel waa la qaaday hebel ma la soo celin hadda waxaan ogahay dad oo meeshan imaado oo ilaa hadda 3 week ku jira mashiinka ku xiran yahay oo cudur ku dhacay oo sanbabadooda biyaha fadhisteen marka hebel lama soo celin marka fikrad ahaan waxaa ku dhalanaysa walwalkii oo hebelba tagi ana ma igu dhacda camal oo kaleeto ma ifantaan ku dhahay aad baan ku fahmay Faysal marka adiga maadaama aad tahay aqoonyahan bartay cilmi nafsiga iyo dadka sida loola taliyo ee maskaxdooda wanaag loogu bedelo waxa xun ay dareemayaan maxaa la sameyn karaa marka ayaad leedahay waxyaalaha ugu horeeya horta la sameyn karo waa koowaad waa golofiyada iyo mask inay qofka gashto oo maaragtay isdifaaco hadda arrintaas ayadana aad baan u guulaysanay oo xarqaano badan baan u soo taray mask waan haysanaa dadka inay guriga ka soo baxaan oo banaanka istaagaan oo maaragtay qorraxda ku dhacdo waa faa'iidada koowaad uu qofka bini'aadanka heli karo teeda kale muhiimadda waxaa waaye inaan fahanno wax la dhaho social distancing maaragtay in la kala fogaado oon isku dhawaanin tan saddexaad waxaa jirto dhibaatooyinka hadda masaajidada oo la xiray meeshii odayaasha ugu tegi jireen oo maaragtay ku sheekaysan jireen ma jirto markii qofkii ahaa inuu dadka la sheekaysto ama dadka la xiriiro hadduu keliis guri ku soo aruuro dhibaatada maskaxda waa kasii daraysaa markii intii ogaalkaaga ah ma jiraan dad waayeelo ah oo isagoo cudurka aan ku dhicin sidaad sheegtay markii ay maqleen wararka ku saabsan dadkii ay yaqaaneen iyo saaxiibadoodii oo isbitaalka loo qaaday oo aan la soo celinin sidaas darteed waxyeello u gaartay cudurkii ka sokowba ma jiraan dad noocaas ah dadku waxa ugu badan hadda heestaba waa taas ayada ah oo ah banaanka ma baxay adeegii iyo waxyaalihii nolol maalmeedka maaragtay oo ay qabsan jireen aan qabsan karin kaasi wuxuu ahaa Faysal Maxamed Cilmi oo qadka telefoonka ugu waramayay Cabdishakuur Cabdullaahi Casowe markaana waxaa waayadan soo badanaya kufsiga lagula kacayo gabdhaha ay da'doodu aadka u yar tahay dhowaan ayay ahayd markii 2 gabdhood oo yaryar oo isku qoys ka soo jeeda lagu kufsaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose haatanna waxay xaaladeedu sii xumaanaysaa gabar 4 sano jir ah oo 7 ka hor lagu kufsaday gudaha magaalada Muqdisho haddaba sidee arrimahan wax looga qaban karaa maxaase tallaabo ah oo la qaadaya waxaynu ka wareysanay arrimahaasi Aamina Xaaji Cilmi oo ah agaasimaha urur lagu magacaabo Badbaadi Dhallaanka waxay u warantay Cabdullaahi Jaamac runtii waa wax laga naxo waana dhibaato soo noqonaysa markii aan ka hadlayno xadgudubyada ka dhanka ah haweenka ama ha noqdeen kuwa waaweyn ama kuwa yaryarba waxyaalaan u istaagnay oo annagu aan isku xilqaanay oon u shaqaynaynayna haddaanu nahay ururada haweenka iyo dadka civil society-ga intaba rag iyo dumarba waxay ahayd sidii bal aan uga hortegi lahayn ama aan wax uga qaban lahayn arrimaha kan soo noqonayay marka hadda waxaan ka leenahay waa wax laga xumaado waana wax xun weeye oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha hadday noqoto diin ahaan iyo hadday noqoto maxay tahay sharci iyo nidaam iyo sharaf ahaaneed intaba marka ururada haweenka iyo ururada bulshada ama dadka u dooda xuquuqda caruurta maxay arintan uga hadli la'yihiin amaba tallaabo uga qaadi la'yihiin runtii hadda waanu ka hadalnaa oo si baagaysahay isku saaran yihiin sharci in la sameeyo oo la sameeyo sharciga loo sameeyo markii waxyaalahan oo kale oo dhacon dhibaatooyinka ah dowladdu waa ay sharci sameynaysa laakiin weli lama baaskarayn haddii horta waxay u baahan yihiin oo xakamayn kara oo celin kara alla subxaana watacaala dhibka celin kara laakiin mar haddaan sharci jirin oo aan marka horena protection waa inuu qofku helaa
qofku ama ha yaraado ama ha weynaado waa inuu sharaftiisa in loo difaaco uu ka helaa. dowladnimadu waa inay gaadhisaa. haddii dhibku ku dhacana qofku dhibana yahana qofkii dhibka u geystay in sharcigu u soo qabto. horta labadaas arrimood way wax bini aadamka caalamka jooga ay ku nool yihiin. marka dalkan waa burburay, dhibaato baa ku dhacday, dowlad la-aan buu soo maray, qori baa laisku adeegsaday, fasaad iyo dhib buu dalku kasoo daalay, waa la baaba'ay. dumarkii iyo carruurtii marka waxay noqdeen victimskii dhibka ugu hooseeya uu gaaray. marka ila maal la helo sharci qofku protection uu ku helo, gabadha iyo habarta iyo saqiirka iyo midka weyn, qof walba protection dowladnimo difaacaysa oo marka hore u ogolaan waxaan inuu dhaco. maxaa yeelay anagu waa ku kornay dalka, waa ku dhalanay, waa ku kornay, waa ku dhaqanay, ma aanan soo arag. sharcigaana difaacay hoostiisa joognay, ilaahay weynaabaan hoostiisa joognay, haddana sharcigaa lagu kala baqay. soomaaliduna inay saj haddaa fiirisid waxaad is leedahay ma xishooto, inta badan waa baqdaa. sharci la-aanta marka uu dhacay in 4 jir iyo 3 jir iyo waxaasu dhacaan, waxaa keenaya waxa waaye qof aan wadno lahayn oon xishoonayn. taasi waxay ahayd aamino xaaji cilmi oo ah agaasimaha urur lagu magacaabo badbaadi dhallaanka. Samiire Cabdulaahi u warramaysay. markaana haddii aynu eegno wararka ciyaaraha, hal ciyaartooy iyo 2 shaqale oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Watford iyo caawiyaha maamulaha kooxda Burnley ayaa ka mid ah 6 qof oo lagu sameeyey baaritaan kuwaasoo fayraska corona laga helay. laba kale ayaa jira la leeyahay oo ka tirsan koox saddexaad, hase ahaatee faahfaahin intaas dheer lagama bixin. shakhsiyaadkan laga helay fayraska corona ee ka tirsan kooxaha kubadda cagta ayaa lagu samayn doonaa karantiil. waayahay intaa haddii aynu kaga gudubno wararka ciyaaraha, dadka reer Burundi ayaa maanta waxay u dareerayaan doorasho guud oo ay ku dooranayaan madaxweyne ee markaasi bedela madaxweynaha hadda xilka haya ee Pierre Nkurunziza. waxaa sidoo kale ay doorashadani imaanaysaa xilli caalamka uu faraba'an ku hayo fayraska corona. Axmed Badar ayaa warbixintaasi soo akhriyey oo stuudiyaha ila jooga haatan. Axmed. reer Burundi waxay dooranayaan maanta xasanow cid bedeli lahayd madaxweyne Pierre Nkurunziza oo isagu markaasi xilka ka degaya. waxaa xilligii xukunka uu hayay lagu eedeeyey in ay ka dhaceen tacdiyo dhanka xuquuqda aadanaha ah. sidoo kale waxaa doorashadana ka qaybgalaya general Impresta iyo Shameya oo isagu markaasi ka socda xisbiga talada haya ee CNDD FDD. dhanka mucaaradka waxaa ka socda Agathon Rwasa oo ah musharax ugu cadcad iyo 5 musharax oo kale oo doorashada u tartamaysa. madaxweyne Nkurunziza ayaa waxaa isagu markaasi ay ahayd inuu xilka ka dego sanada 2034 balse waxa uu doortay amaba u go'aansaday in uu howlgab noqdo. taas macnaheedu ma aha in uu weli siyaasadda ka baxayo, balse waxa uu yeelan doonaa awood badan oo waxa uu markaasi noqon doonaa hogaamiyaha markaasi sare oo lagala tashado xaaladda qaranka ee dalkaasi. doorashadan maanta ka dhacaysa dalkaasi Burundi ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa xasan xilli cudurka coronavirus uu farabaan caalamka ku hayo. dalka Burundi ilaa imika cudurkaasi wuxuu soo ritay 40 qof, hal qof markaasi cudurkaasi u dhintay. waxaa sidoo kale doorashadani ay xasanow ay kusoo beegmaysaa xilli madaxweynaha xilka hayay uu isagu markaasi ka qaybgalayn doorashada 2015 doorasho ka dhacday dalkaasi oo rabshado badnayd ayaa Nkurunziza waxaa loo doortay xilligaasi markii saddexaad, balse xilligaasi mucaaradka dalkaasi Burundi way qadceen. laakiin dabcan Badaro waxaa la isweydiinayaa xilligan siday ugu dhiiratay dowladdu in ay doorasho qabato iyadoo cudurkan aad looga cabsi qabo. waa arrinta dad badan ay isweydiinayaan, balse dowladda waxa ay go'aansatay arrintaasi. waa tahay Badar, waad mahadsan tahay. guud ahaan barnaamijkii subaxnimo waa naga intaa dhegaystayaal. dhammaanteen isku duban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. waxay noo ballana 2 duhurnimo.